dhibaato kugu filan inaad tahay Soomaali. We the best. Another one. Tita Cadde. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa anigu Maxamed Xasan. YouTube-ka daawanaysaan waa Tita Cadde channel. Fadlan haddii aad ku cusubtahay ama ay ku tahay booqashada koowaadna waxaan kaa codsanayaa daawada inaad subscribe saarto channelkayga gambaleelka furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeyay videoga like saar aad iyo aad u mahadsantihiin. Intaasoo dhan waxaan filayaa inaysan lacag ahayn oo ay tahay free. marba haddaysan lacag ahayn adigana ma ahan in aad iga baqiisho. kusoo dhawaada muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan rabaa inaan ugu hadlo fanaanka weyn Nimcaan Hilaac oo nin la yiraahdo Blue Makeup oo hadda magaca bedeshay oo baxsaday Zamzam ayaa wuxuu sheegay in Nimcaan Hilaac uu heestii jacaylkii qabyoobay oo asiga uu usoo qaaday. Nimcaan Hilaac iyo asigana uu ka dhaxeeyay xiriir wanaagsan oo dhanka kalgacaylka ah ama jacaylka loo yaqaano oo nin inaagta uu ilaahay isugu baneeyay ay dhex maraan. laakiinse ninka Blue Makeup hooyadiis waxay ku dhashay inuu yahay qof wiil ah, ilaahayna wuxuu u sameeyay inuu yahay qof wiil ama qof rag ah, balse wuxuu isku bedelay waayadii dambe inuu yahay qof dumar ah ama qof laga roono ah. hadba sidaa doonto u fasiro. wuxuu soo dhigay baraha bulshada social media qayb ka mid ah oo la yiraahdo Snapchat-ka ayuu wuxuu soo geliyay asigoo sheegayo in Nimcaan Hilaac iyo asiga xiriir uu u dhaxeeyay. midda kalena uu heestan jacaylka qabyoobayo nasiib khadar baajiyo qiimaad ku lahayd agteedana uu asiga u qaaday Nimcaan Hilaac. weliba wuxuu leeyahay ma rumaysanaysid inuu aniga ii qaaday Nimcaan Hilaac heesta. haddana wuxuu soo bandhigay asigoo nin laga rabo ama laga wado inuu yahay Nimcaan Hilaac gadaal ugu dhegan oo qoortiisa dhunkanaya iyo heestiyo saaran ayuu soo dhigay. balse youtuber badan ayaa soo qaadanaya macalin muuqaalka. laakiin xaasha lilaahi anigu qofka Soomaaliyeed in aan horumarkiisa ka shaqeeyo iyo in uu ceebaalkiisa asturo ma ahane. lagama yaabo muuqaalka hadduu habbooneen in aan soo dhigo oo aan dadka tusiyo, balse waxaan u hadlaa si cod ah si aan anigu u sheego wixii wanaagsan wixii qalad aan halkaa ugu baabiyo. horta run ahaantii dadkeena Soomaalida anagaa dhibaato isugu filan. dhibaato bannaan nooga imaanayso horta ma jirto runtii. maxaa yeelay keeni fanaanka ah ma dhaafno, keeni kubadda ciyaara ma dhaafno, keeni youtuberka ma dhaafno. anaga dhibaato aan isku ahayn ma jirto. dhibaato meel ay nooga imaanayso. run ahaantii Nimcaan Hilaac waa fanaan Soomaaliyeed. hadda wuxuu ku sugan yahay ama uu ku nool yahay dalka Mareykanka oo gabar meesha joogto ayaa isguursadeen kadibna halkaa baa loo qaaday. hadda wuxuu ku nool yahay Mareykanka. Nimcaan Hilaac waa nin afgaaban oo edeb badan. xaqiiqiyan anigu Nimcaan Hilaac waan la kulmay. waxaan la kulmay 2015 baan Hargeysa isku aragnay madaarka Cigaal Airport anigoo magaalada Muqdisho u soo socda iyo asigoo Nairobi aadayo ayaa madaarka isku aragnay. halkaas baan sabir kula galay. Instagram-kayga laga heli karaa. Instagram-kana soo follow garay waa Tita Cadde. Instagram follow soo dhaaf bakhilamada iska daaya. follow hala soo dhaho. sawirka meeshaas ka heli kartiin oo ku jira ani Nimcaan Hilaac. Nimcaan Hilaac waa la hadlay waa qof degan qof edeb ka muuqatay. laakiin hadda muhiimad waxaan laga leeyahay qofka markii la rabay in qof ceebaalkiisa ama la garaafeeyo waxaa loo soo adeegsadaa dadka aan sariigta lahayn. sariig waxaa la yirahdaa xishood. macnaha wejigan tinta waxaa looga qaadayaa la yiri xishood, inuu wejiga xishoodo sariig yeesho. laakiin nin futada dhiibaayo wuxuu ka xishooha nin dabadiisa taagtay oo yiri igili wuxuu ka xishooha. xabad kama xishoonayo. fanaan miya, shiikh miya, wadaad miya, macalin miya, madaxweyne miya, break ma qabanayo. sababtoo ah wax ilaahay ugu goodiye baddaa hadday soo dhaqaaqdo in sida laba nin isku tagtay oo kale ayaan ku cadaaba baddii cabsatay nin ku dhiiraday inuu sameeyo. Nimcaan Hilaac xoog yaa taqsiintu waa kala sahlan tahay. marka keeni sharafta leh. hadda fanaaniinta xataa waa qaar baa wax la tuhtuumi karaa. laakiin Nimcaan Hilaac
في respect Soomaali waxaa loo baahan yahay ninkaas inay u muujiyaan respect aad u sareeyo fiiri anigu ciyaaryahan caalamka taariikh ka sameeyay oo maanta indhaha lagu haayo ma haysano ganacsade waali caalamka dhan qabsaday oo gabaaridiis intaas ku socdo baawur 3 milyan oo Ferrari ma haysano fanaan sidoo kale heerka gaaray ma haysano war youtuber heerka gaaray ma haysano war anagu intee u soconaa anagu maxaan nahay horta Soomaaliyeey ma isweydiisay idinka keeni hormar rabo lugta laga qaban hadda nimcaan ilaa waa fanaannimo waa aqoonsan tahay maanta waxaa la rabay nimcaan ilaa in uu ka wato nolosha meesha ugu sareysan uu ku noolaado America jooga hadda ikow xamaali gala inuu noloshiisa dhacsado oo xamaashto ayuu galaa waxa igu maqaalaa in kasto aan xaqiijin karin in suuqa hilibka hadaba la geeyay meesha xoolaha lagu qalo oo inta badan Soomaalida ay ka xamaalat in la geeyay laakiin anigu ma hubo xasha lillahi inaan ku xad gudbana ma jecli waa nin igu qaaliya fanaankeenii waaye waa respect gareynaya laakiin ninka hadda zamzam baxsaday runtii dadka Soomaaliyeed qaarkood oo dadka social media isticmaala sida YouTube-ka dadka YouTube-ka iska leh waxa arkaysaa qofkii fiidiyogiisa isticmaala looma baahna ina qofkaas la buunbuuniyo dadka la tusiyo laakiin waa in afka loo karbisi af loo karbaasho sababtoo ninkaas waa nin Allah iyo rasuulba ka furtay qofka haduu Allah iyo rasuul ka furtana wax adduunta ka ay u taal malahan ninka ilaahay asoo u dhaliyay inuu yahay nin rag naag iska dhigay yaa oo sida aragteen is yeelay miyaa waji ka sugaysiin waa maya nimcaan ilaa xasha lillahi waxaan leeyahay xaal qaado nin wanaagsan baa tahay anagu dhan baa ku taageersan nin Soomaaliyo ka wanaagsan ma heeso fanaanka ugu macquulsan Soomaaliya tahay haddii cod noqoto haddii anshax noqoto haddii wanaag noqoto wax kasto intaan ka arkay ugu filan qofaan arkin ma tihid inta wanaag ii sameysaya ugu filan runtii waa nolosheeda fanaanka kaliya hadday naqan lahayd nin iyo hadday naqan lahayd naag aan kala kulmay waa nolosheeda inta noolaa si wanaagsan uu ii soo dhaweeyay si wanaagsan uu ila hadlay si wanaagsan uu ii tixgeliyay Soomaalinimadu igu qiimeeyay blue make up marka waxaan leeyahay blue make up ilaahay iyo rasuulba waa ka furatay dadkeena magaca leh noo dhaaf ewela magacoodii hanti ugu dari weynay ayagoo hanti aan ugu dari weyno oo anaga noo dhabar adeegay oo noogu heesa xaaladan ku jirno noogu raaxeeya oo muusigadaas maskaxdeena ku digsana marmarka qaar oo isku buuqsanahay anagoo dhaqaale ay naga heleenin wariyaa ninka fanaanka oo Kenya u dhashay Ferrari oo ka wataa maxaa idinku dhacay fanaankiina Ferrari ma wato hantiila ma aha ma raaxeesto murug ma loogu sii daraayo fadeexo rin la isku xishooda aad bay u wacan tahay u wanaagsan tahay waliba ninka Fuad make up liiraadana war ka xishoowan ku leenahay ma ilaahay baa ka xishooways adigu nagamana xishoonay sidee ilaahay ku abuurtay oo naf ku geliyay baad ka xishooways nimcaan ilaacna kama xishoonays umad kalena kama xishoonays dadkeena waa la isku soo adeegsadaa nimcaan ilaac ninka waa loo soo adeegsadaa hadda aniga kuubo sababto nimcaan ilaac inuu ninka ka soo sameeyo propaganda ila nina xishooneen ina wax loo dhiibaaye inuu propaganda ka soo sameeyo waxa waaye waa wax rag ay ka dambeeyaan ama naagu waxay rabaan ha noqdaan rag Soomaaliyeed ama naaga Soomaaliyeed baa arinka u dhiibay Fuad make up in uu baraha bulshada la wadaago oo waxa sameeyo waxa la yiraahdaa waji bir wax ku karine ruuxan qaadbal oo suuqa geey sidaas uu ku keenay marka waa ceeb dhibaatana waxa kugu filan wallahi xaqiiqo waaye dhibaatartu waxa kugu filan Soomaali u dhalatay sababtoo hadda Soomaali u dhalatay adiga ma iska dhibaataysanba dar Allah buu dhibaataysantaa wax meel ay kaaga imaaday ba mataqaan waa iska dhibaatay sababtoo waxa waaye waa dareemi kartiin maanta meeshaan joogno iyo meeshaan fadhino intaas wax walba ku fahmi kartaa aqli leedahay walaalka baad xasid ku tahay walaasha baad xasid ku tahay aabaha baad xasid ku tahay hooyada baad waran inteed u socotiin waxa la yiraahdaan
waxaad dilaysaan burbogaandeynaysaan dad baa kala furaysaan dad baa isku daraysaan dad baad dilaysaan oo nool baa waxaad leediin wuu dhintay dad isqabay baa waxaad leediin way kala tageen dad isqabin baad is aroosinaysaan war yaa ilaahay yaqaan caannimadu hadday Soomaali tahay caannimadu waa sidaa marka caannimada la sheegayo oo mar walba noo soo qortaan oo dhahdaan inaad soo caanbaxdaad rabtaa waa taa caannimadiina adoo sidaan le maaho yaa waxaan shaqo iyo shuqul ku lahayn lee dusha nooma saaraysiino marka caannimo idinkama rabnee war ummadda lafahoodii ha loo nabadgeliyo marka video intaan kusoo gabagabatay kulantideena dambe